banaanbax ballaaran oo xoogan yagee ka dhigay magaalada Baydhabo kaasi oo la cambaarayay falalka guracan iyo duulaanka gardarrada Xasan Sheekh iyo kooxdiisa oo qaadan dowladda Koonfur Galbeed badbaxan iyo waliba u qayb galana boqolaal dadweyne oo iska jara dhalinyaro haween iyo qibaashal dunga bulshada si weyn ku dareemay wadooyinka waaweyn ee magaalada iyadoo dadkii ka dhawaaqayeen hal ku dhigyo muujiyo caro iyo diidmooyin qaban tallaabooyinka Xasan Sheekh iyo kooxdiisa qaadan dowladda Koonfur Galbeed dadkii banaanbaxa u qayb galaya waliba wadeena booror iyo qornin ariyo muujiyeen diidmadayo oo ka baaqay intii la roojiyay afargelinta la kaaya deegaanada Koonfur Galbeed isla markaasna la ilaaliyo xasiloonida iyo midnimada maamulka sidoo kale banaanbaxan iyo naqdi mid si cadlin ka muujiyay taageerada dowladda Koonfur Galbeed u hogaamiyo madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen iyadoo shacabka u qayb galiyo adkaayeen garab surmo ku leeyahay maamulka dowladda Koonfur Galbeed may mahadnaqaanay jamaahirta kacdoonka shacabka oo shacabka magaalada ka nool caasimadda Baydhabo aan ku horjeedaan khiyaanada ay dhagarta Xasan Sheekh ku maleegaw magaalada Muqdisho oo lidka Koonfur Galbeed waxaan leenahay marka waa aragtaan waxa dad isku soo baxay maanta waa arkayseen dadkaas waxay diidan yihiin waxay ku dhawaaqayeen waa arkayseen waa kacdoon shacab oo laga soo horjeedo shirqoolka ay maleegayaan Xasan Sheekh iyo tiimkiisa oo lagu burburinayo dowladnimada Soomaaliya waxa ogtihiin ama la socotaan waxa la isku haystay inaysan ahayn xindaabkii dowladnimada ay noqotay wax dowladnimo ka baxsan dastuur nin iska qortay ayaa la rabaa in dadka qoorta loo geliyo waxaan leenahay dastuurka aad samaysatay xaafadaha geyso masagawa iyo budbud geyso iyo meesha aad ka soo jeeday annaga Koonfur Galbeed hadana dastuurkaaga shaqo kuma lihin nama khuseeyo taasi waa qodob ciidamadan oo macluusha ay ka muuqato oo aad ka u rafaadsan oo aad soo daabulayso diyaarada ku soo qaadayso oo aad baraawe iyo buuraha ka keenayso wax macna leh ay soo kordheen ma jirto oo aan ka hayn in dhiig uu daato waxaan xaqiijinaynaa markii idin sheegaynaa dhiig Soomaaliyeed haduu daato waxa mas'uuliyadda qaaday Xasan Sheekh saa ogtihiin waqtigiisa waa dhamaaday waxa uu harsan wax ka yar 55 bari 53 bari 52 bari waa loo tirinoyaa asaga suuq Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ugu tirinay ayaa loogu tirinoyaa marka waxaan leenahay waqtiga ka faa'iideyso u diyaar garow doorashadii teendada dagaaladan iyo waxaan wadada iska daa Soomaali waxa deeqay nabad waxa deeqay dowladnimo waxa deeqaysa walaalnimo marna waxaan aad soo wado meelaha kula ordaysa wax ku shaqeyn doona ma waxaan leenahay marka Soomaali oo ujeedaan meeshii wax marayaan waxa social media ay beenta la sheegayo xaga la aaday iyo masaakiin la soo diro meelaha marmareysana dowladda Koonfur Galbeed waxay ka tiraysaa male waxaan maartay ugu baaqaynaa dhalinyarada la soo lugooyay oo laga soo qaaday Muqdisho iyo Xudur oo la isku geeyay Baraawe laga isku geeyay meesha la yiraahdo buuraha kaba qaarna la geeyay Baraawe waxaan leenahay ka faa'iideysta maxay ahayd fursadda idin banaan oo isku soo dhiibay ciidamada Koonfur Galbeed waxaad helaysaa nabadgelyo iyo amaan hadda diidaanna Xasan Sheekh waxa idin ka dhigtana idinka og meeshaad wax ka sheegi doontaan marka waxaan idin leenahay waqtigiisa idinka lumin Koonfur Galbeed way guuleysatay dowladnimada Koonfur Galbeedna way tisqaaday mana aha mid maxay ahayd la hor istaagi karo aad u mahadsantiin dadka soo baxay maanta oo dib baxay isku soo baxay dhamaantiin waa mahadsantiin qalbigaan idinka ogsoonahay waxa weeye gobonimadaas iyo dowladnimada jacaylkaas iyo maxay wanaagaasna waa ku mahadsantiin ka dambeyn xaaladda magaalada Baydhabo ee meedegan inkastoo banaanbaxan u saayay mid ballaaran iyadoo ammaanka si weyn leh adkaay intii dareeray banaanbaxa